إن الله عليه أنت كسر قيب قشي مناسبة صحافة مدعى إليه يمنصبك يكون ديانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام waxaan marka ugu horeyso u mahad celinayaa xildhibaanada koonfur galbeed ee doortay aad iyo aad u mahadsantihiin iyo intaan dooraninba waxaan kaloo u mahad celinayaa guddiga doorashooyinka oo shaqo nadiif ah oo cadaalad iyo doorasho xor iyo xalaal ah oo intii aan joognay aan codsanaynay qabtay ayagana waa u mahad celinaynaa guddiga doorashooyinka waxaan kaloo u mahad celinayaa guddoonkii shaqadan qabtay u dhabar adeegay doorashada ayagana waa u mahad celinayaa waxaan si gooni ah ugu mahad celinayaa saaxiibadaydii kulliigii aan tartanay musharaxiintii doorashada aan ka wada qayb galnay oo ayagana ku qancay natiijadii soo baxday ayagana waa u mahad celinayaa si gaara waxaan ugu mahad celinayaa saaxiibkay walaalkay aadan saransoor oo ahaa ninkii labaad oo isku xigay mudanayaal iyo marwooyin kusimaha madaxweynaha mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh aad iyo aad u mahadsantihiin shaqadii la idiin idmaday oo dastuuriga ahayd oo waajibaadkiina ahayd si xor iyo xalaal ah u gudateen waan kaga mahad celinayaa maanta waxaa ilaahay mahadiisa ah oo ilaahay uu noogu gargaaray inay maanta koonfur galbeed waajibka aad lahaydeen aad gudateen madaxweyne daacad ah oo dalkan iyo dadkan u adeegi doona aad doorateen ilaahay idankiisa adinkana aad ila shaqayn doontaan oon ku garab istaagi doono wada shaqayn sida koonfur galbeed marxaladihii tirada badnaa oon sheegnay ku jirtay looga bixiyo waxaan kaloo sheegayaa nin kasta oo reer koonfur galbeeda waa guulaystay nin laga guulaystay ma leh annaga dhan baa guulaysanay soomaali oo dhan baa guulaysatay koonfur galbeed oo dhan baa guulaysatay musharaxiinta dhan baa wada guulaystay annaga dhan baa guulaysanay ilaahay guul ha noogu dhammeeyo inta hartayna allah noo dhammaystiro koonfur galbeedna meeshii barwaaqo iyo nabad iyo baraaro noqota allaha ka dhigo aad iyo aad u mahadsantihiin maanta munaasabadda ma aha munaasabad laga khudbaynayo oo khudbo laga jeedinayo waxay tahay maanta waa maalin farxadeed waa maalin qayraysan waa maalin barakaysan ilaahay ha noo barakeeyo waa isu mahad celinaynaa maanta maalintii isu mahad celinayo waaye kulligiinna waa mahadsantihiin kasoo qaybgalayaasha mar labaad iyo mar saddexaad ma iloobi doono xildhibaanada koonfur galbeed doorashadii ay doorateen waa ku mahadsantihiin shacabka reer koonfur galbeed taageeradoodii intii musharaxa ahaa ayna taageerayeen ayna garab taagnaayeenna waa ku mahadsantihiin